warwan salaamay dhammaantiin meel kastoo joogtaan andhaho andhabi ayaan ku salaamay gabadh waxbarato fasalka musharaxada anigu midna aan idin sheego dhammaan taageerayaasha haddaad jiiftaan iyo haddaad soo jeedaanba waxaan idin sheegayaa inaan aanu musharaxayn waan ka tanaasulay musharaxii maadaama aan arko madaxweynuhu shidaalka idin furaya dantiina ku jira dee inaan aanu dantayda ku jirin oon horta bal siraal guri aad iyad u leedahay kana aad gasho dowladda alehe dhisa baa laga yaabaa oon musuq galo laakiin madaxweynuhu maadaama oo kiisii hore oo sharatan sanaa war qasilkii aad ii dirtay maana helina taleefonka iga daa inaad eero qasil baad ii dirtay qasilkii maana helin boostiina waan garan waayey waxaa shaqadaad ii dirtay ee iga raalli ahow qasil baan garan anigu shaarkayga beesaantayda soo gadaa dhammaantiin waan salaamay mar labaad waxaan idin sheegayaa inaan aanu ahayn musharax aan siyaasin ahayn aan ahay andhaho antabi ka qosliye inta isle macnaha waa musharax ee intay suuqay soo hor istaagto waayadan waxba ma qortidahayo waxba ma qorayo aanu xukuumaddan hadduu mustafa cagtar tago uu nin kala yimaado waa saaxiibkay hadduu kanu joogana waa saaxiibkay waxba igama gelin aniga horada arrintaa qaata waxaa weeye midnimadiina iyo rabitaankiina ayaan ku jirnaa soomaali oo dhan baanu u taagannahay kuwanala reer hebel baa tahayna ma nihin reer hebel wax la dhaho ma nihin maxaa reer nooga dhigo ummadoo dhan baa waan suldaan unahay caddaan iyo madow godobirsigaasaanu leenahay waanu taageersannahay cid walbaanu leenahay oo xorriyadda iyo soomaalida jecel waxaa weeye midna waan idin sheegayaa fariin yar baan idin saaka usoo galay fariintaan usoo galay waxaa weeye horta kow siyaasi meye cidda siyaasi moodaya aabbaha madaxa laga gub waxaan ahay ka qosliye arrinta kalean idin sheegi waxaa weeye etoobiya inta qoomiyadaheeda isugu jirto idinku midooba qoomiyad baa laysu laynayaa idinkuna waxaa la fadhiyaa ree hebel war ree hebel intaad inaga daysaan wax qabsada oo wixii la qabsado aan wax qabsano magaalo gunta hoosta laga hantiyaa fikirkeena intaan laydii curuna fikirada idinku fikirkeena dad isjecel noqda kiina xun iyo kiina wanaagsan gamcaha isqabsada waa inaan idinka tagaa laga yaabaa wadamo kalean adaya oo soomaaliya ka mid yihiin waxaan idinka tegayaa baasaboorkii saaka gacantaan ku hayaa marka waxaan leeyahay midnimadiina ilaashada tad isku duuba noqda dadkiina inaad si hore u socotaan mooyin dib ha u laabanina ree hebel intaa taagantiina wax idii hirgeli ma jirto waxa weeye ninkii wax bartay dukumentigiisa hadda annaga xaruntii dhexdhex fadhina noo imaada oo dukumentigiina la imaada halaydi shaqaalaye laakiin inaad ree hebel dadka ku abaabusho oo dembigaaga aad ku qariso kolla kaama yeelahin ma beentayo nimayon waxaa weeye cabdina ninkaan niyona aad booqati baan lahay bilaa nooli baan ahay waa dhaweyto sabanaar dowladdu ii dirtana dhinaca baan ka mara marka waxaanu leenahay dacwadda diintaan faafinayna in macnaha dadkanu dad muslima yahay markuu laydhku madoobaadana shidaalkaa meel laga xadayaa matakraygii baa xadaya mise oromada midkood baa xadaya deegaankeena arrintaa qaata shidaalkaa habeenka dhawe la xadayay laakiin annagaa xilli dambe ka waxayn inaad hore isoo doono waagii hore waa nin ku siin jiray waagu cabdi meesha ii saaray horta nin baadna nin mid kalena waan kuu sheegay waraa maxamed cumar maaray aamiin oo master ah oo markuu hal khudbada soo jeediya dadku dhaga fakaaro ayaad ku qiimeynaysaa cabdi buu dhunkaday war cabdi asagoo meel taagan baanu wada dhunka jirnay wisha ninkaan u dhunkanin cabdi muu joogi karay deegaanka midda kale dadka been aan lagu qiimeynin maad naga qabsatid odaygan reegodayga haddaad godayn baad ka hadashaay canka jeexan ee dhagax jarar iyo fiiqba dadka ku leynayay ee xildhibaanka odayga canka jeexanaad noo soo dirtay haddaad reegoday wakiil ka tahay aamiinad lacagtaad kusoo caddaysan annagaa ku siine
wiilka yare maareeyaha ee dadku waxbarayna ay u qirahayaan inuu waxbaray reegodayoo dhan ayaad oo adhisabuu joogo oo deegaanka iman kara laabadeega inaad wax ka sheegta rabtaa lacag buu iga qabaanin salama beach noo soo sheeg lacagtu kaa qabo hadda soo jajabso arkoonkaygaan kaaga saari lacagtu cabdi kaga tegay odaygan canka jeexana laakiin noo soo noo dirta laba maxamed suweerka leynaya haddadan baanu meel saari ragga